soo dhawaada saaxiibayaal oo wiilkiina sirta filimkeena maanta wuxuu ku bilowmayaa dalka Japan halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo kun oo ninjaas ah kuwaas oo aad u awood badan muuqaal ahaan waxay u eegyihiin dadka caadiga ah laakiin xaqiiqdii waxay ku nool yihiin nolol aad u halis badan Suzuki waa ninjaas darajadeedu hooseyso oo bulshada dhexdeeda iska dhigta tafaatiiro joornaal maalin maalmaha kamid ah fariin degdeg ah ayaa u timid si dhaqso ah ayay u macaasalaamisay qoraageedii waxayna aaday dhanka buundada markii ay halkaas gaadhay waxay aragtay nin u dhashay dalka Ruushka kaas oo ugaarsaday ninjaaska waxaa la siiyay hawlgalkan inay ninkan disho ninkii wuxuu rasaas ku furay Suzuki balse way ka leexatay waxayna isticmaashay kabaheeda oo si lama filaan iskugu bedelay mindi af badan ninkii si dirqi ayuu ku badbaaday wuxuuna sii waday inuu hubkiisa ku weeraro Suzuki laakiin Suzuki way iska leexisay waxayna bilowday inay ku weerarto biraha ninjaaska kadibna dhabarka ayay kaga timid oo laad xooggan kaga dhufatay haddana ninkii ma istaagin xataa usheeda korontada waxba ma yeelin wuxuuna Suzuki ku dhuftay dhulka meel aan ka fogeyn ninja kale ayaana waxaas oo dhan dusha ka daawanayay ninjaagan waxaa lagu magacaabaa Kato waa ninja darajadiisu aad u sareyso hadda ninkii oo isku diyaariyay inuu Suzuki toogto laakiin daqiiqadii u dambeysay waxaa garabka kaga dhacay fandicil markuu dib jaleecayna wuxuu arkay wiil dhankiisa u soo ordaya wiilkana sidoo kale waa ninja magaciisuna waa Kuro si aad u fudud ayuu uga adkaaday ninkii Ruushka ahaa ugu dambeyntiina ceeji ayuu ku dilay wuxuuna Suzuki ku yiri waan sii baxayaa inta dhiman adiga dhamaystiri doona Suzuki way naxday waxayna isweydiisay waa nin nooceeya ninkan maxaad qof kale ugu ogolaanaysaa inuu qaato guushaada Kuro wuxuu ugu jawaabay shaqo intaas la eeg ma qaban karo haddana guriga ayaan u socdaa si aan u seexdo Kuro wuxuu ahaa ninjaas aad u awood badan balse sidoo kalena aad u caajis badan intaa kadib si aamusnaan ayuu halkaas uga dhaqaaqay waqtigan wuxuu degan yahay guri aad u qadiimiya oo raqiisa isagoo guriga ku caajisan wuxuu sameeyay inuu saqafka guriga ku dhajiyo fallaadho ka samaysan findicil isla markiiba qof ayaa qolka soo galay isagoon wax sanqara samayn waa madaxiisi Kato oo u yimid inuu u dhiibo howlgal cusub dagaalkii labaad ee adduunka kadib qaar ka mid ah ninjaaska xumaaday ayaa samaystay koox halisa oo la yiraahdo Undergroup Ninjas ogta sirdoonka ayaa sheegaysa inay qabsadeen dugsiga sare ee John High School iskuulkan wuxuu ku yaalaa meel gaar ah hore u ahaan jirtay xero ciidan halkaas ay weli ku jiraan sire laga soo tagay waqtigii dagaalka howlgalka Kuro waa inuu halkaas si qarsoodiya u galo oo uu soo ogaado qorshahooda si uu uga caawiyo howlgalka Kato wuxuu siiyay suud gaar ah suudkan wuxuu qofka ka dhigi karaa mid aan la arki karin laakiin wuxuu ka shaqeeyaa qaybta sare oo kaliya markii uu Kuro tijaabinayay suudka waxaa suuliya ka soo yeedhay codka gabadh saaxiibtiisa oo baahan tiishka musqusha tiishku uu ka fogaa waxayna ku tiri haddii aad dhankayga soo eegto waan ku dili doonaa isaga oo hadalkeeda raacaya Kuro ayaa darbiga kor u fuulay isagoon gabadha eegin ayuuna warqadda soo qaatay laakiin markii dambe si uu warqadda ugu dhiibo ayuu dhankeeda u soo jeestay taasoo keentay in wejiga kabla kaga dhufto subaxdii xigtay Kuro wuxuu gaadhay iskuulka John High School markii uu ogaaday inuu u baahan yahay imtixaan si loo aqbalo aad ayuu u walwalay wuxuuna ku sigtay inuu iska dhaafo howlgalka laakiin wuxuu ka baqay Kato isagoo ka fakarayay siduu imtixaanka uga gudbi doono wejigiisa daalan laakiin quruxda badan wuxuu soo jiitay dareenka Noguchi oo ah ardayda imtixaanka ku celinaysa markii uu fasalka galay Kuro wuxuu kormeeray fasalka isagoo hoos eegaya kadibna wuxuu fadhiistay meel u dhow Noguchi wuxuu hubay in ururkiisa ay u sii diyaariyeen qaab uu ku baaso waxay dhulka ku daadiyeen bariis midabo kala duwan leh oo jawaabaha markii uu Kuro bilaabay inuu jawaabaha qoro Noguchi ayaa qaylisay iyadoo u maleynaysa in bariisku yahay cayayaan macalinka ayaa yiri haddii ay ku dhibayaan iska nadiifi laakiin Kuro wuxuu niyadda iska yiri wayna wax sameeyaa tirtirihiisa ayuu dhulka ku tuuray markuu soo qabsanayna si xirfad la ayuu warqadu duuban ugu tuuray Noguchi kadib way qaylisay iyadoo le qof ay taabtay waxayna macalinka ku tilmaamtay oday saqajana macalinka ayaa yiri gacmo sidaas u dhaadheer malihi intii ay dooda socotay Kuro wuxuu si degdeg ah u buuxiyay warqadihii imtixaanka laakiin ka hor inta uusan xisaabta dhamayn macalinkii ayaa u soo dhaqaaqay dhanka Noguchi wuxuuna cagta mariyay bariiskii jawaabaha ahaa maadaama uusan wada kala haysan Kuro wuxuu isticmaalay jilitaan wuuna isku kaadiyay isagoo fadhiya kadibna wuxuu bilaabay oohin isagoo le imtixaanka ayaa aad uga baqay oo biyo badan ayaa soo cabay macalinkii ayaa aaminsiiyay oo yiri imtixaanku waa magacoyaal oo kaliya xataa haddii aad warqad badan dhiibto oon ku baasinaynaa Kuro wuxuu rabay inuu xog badan ka helay iskuulka markii la baxayay markaas ayuu Noguchi sugay Kuro gurigiisa ayaa soo dhawaaday wuxuuna Noguchi ku yiri kaalay gurigiga qadiimiga Noguchi xogaa way ka labalabaysay laakiin markii dambe way ogolaatay markii ay saqafka gurigooda joogeen waxa u sheegtay in fasalkooda wiilal badan dhigtaan saaxiibkeed Ita ay aad u dhibeen ilaa uu iskuulka ka tagay waxay kaloo u sheegtay in iskuulka hoostiisa ay ku jiraan godad sir ah oo taga xero ciidan oo la isticmaali jiray dagaalkii labaad Kuro wuxuu fahmay in kooxda Undergroup Ninjas ay raadinayaan xeradaas markii qoraxdu dhacday Noguchi waxay tiri waan baxayaa laakiin si kadis ayay saqafka uga siibatay laakiin ka hor inta aysan dhulka ku dhicin Kuro ayaa booday oo qabtay suurkiisuna wuxuu isku bedelay farkin badbaado Noguchina iyadoo qaylinaysa ayay soxday Kurona gurigeeda ayuu geeyay isla habeenkaas wiil dhib badan ayaa diyaarad daroon ku basaasay gabadh
gabadha deriska ee Kawado laakiin muusan ogeyn in Kuro uu xiran yahay suudhka aan la arki karin halkaasna uu fadhiyo. Kuro wuxuu wiilka ku qabtay ushiisa korontada wiilkana dhab ahaantii waa saaxiibkii Naguchi ee Itiya. Kuro wuxuu ku amray inuu raaligelin siiyo Kawado maalintii xigtayna iskuulka ayuu u kaxeeyey isagoona u ballan qaaday inuu ilaalin doono laakiin shardi ahaan ugu xidhay inuu lacag siiyo. intaa kadib waxaan ku xasuusinayaa inaad like sarto muuqaalka oo hilmaamto inaad like sarto channelkan aad subscribe tiraahdo oo nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay. waxaan ka codsanayaa inaad si share gareyso muuqaalkan si uu dad badan u gaadho. markii ay iskuulka gaadheen wiilashii dhifta badnaa ee Itiya soo weeraray laakiin maanta Kuro ayaa joogay. Kuro wuxuu si qarsoodiya lugtiisa ugu qabtay lugta Itiya wuxuuna ku laaday wiilkii kale. Itiya ma fahmin waxa dhacay. Kuro safka dambe ayuu fadhiistay buugna ma uusan wadan. marka gabadh la yiraahdo Sato ayaa buugteeda la wadaagtay taasoo keentay in Naguchi ay ku eegto indho maseer leh isla markiiba iftiin guduudan ayaa wajigiisa ku dhacay kaasoo ah calaamadii ninjaasku ay ku wada hadlaan. Kuro fasalka ayuu ka baxay saqafkana waxaa joogay Shion oo ah ninjaas darajo sare leh. Shion sidoo kale wuxuu ahaa ninjaas si qarsoodiya iskuulka u jooga. Shionna shaqadiisu waxay ahayd inuu ogaado xubnaha undergroup ninjas. waxaa kaloo jira ninja kale oo iska dhigaya maamulaha anshaxa. wuxuu kaloo ku yiri fasalka kadib qolka kuleeliyaha igu imow. intaa kadib Kuro wuxuu arkay Itiya oo dhib dhexda ugu jira. wuxuu isticmaalay suudhkiisa si uu u qariyay qaybta sare. kartoon ayuuna madaxa gastay. wiilashii mid ka mid ah ayaa Kuro laaday laakiin isagii ayaa dhulka ku dhacay. Kuro wuxuu istaagay Itiya gadaashiisa wuxuuna qabtay gacmihiisa isagoo isticmaalaya gacmihii Itiya. waxa wiil kale ku dhuftay feer xooggan si Itiya loogu aqoonsado geesi. intaa kadib Kuro wuxuu aaday qolkii kuleeliyaha. maamulihii ayaa seef la soo baxay oo weeraray Kuro. labadooduba waxay ismoodayeen inay ka tirsan yihiin cadowga undergroup ninjas. Kuro si fiican ayuu iskaga difaacay weerarka. markuu ogaaday in maamuluhu uusan cadow ahayn wuxuu ku yiri dib u istaag dayax gacmeedkayga ayaa ku soo beegsanaya. maamuluhu wuxuu u qaatay kaftan laakiin isla markiiba dayax gacmeedkii ayaa laser ku soo gamay oo seeftii maamulaha laba u kala gooyay. maamulihii wuxuu gartay in Kuro uusan ahayn qof la dhayalsado. Kuro markuu baxay wuxuu arkay gabadha fasalka ugu caansan ee Mitsuki si yaab leh ayay u dhoola cadaysay wayna iskaga tagtay. dukaan u dhow albaabka ayaa iskii u furmay alaabtiina way daadatay. haweenaydii dukaanka joogtay oo iyaduna ninja ahayd ayaa isku dayday inay dagaalanto laakiin cadow aan la arkin ayaa dilay. Suzuki waxaa u timid fariin sheegaysa in macalinkeedii la dilay isla markiibana iyadii ayaa la weeraray. waxay fahantay inuu yahay qof ka socda undergroup ninjas oo wata suud casri ah suudkaas oo gebi ahaanba la arki karin. dhinaca kale ninkii aan la arki karin wuxuu qaatay Sato. Suzuki ayaa ka digtay in dadka shacabka la dhibaateeyo. ninkii wuxuu yiri dhimashadaadu halkan ma aha waxay taalaa Cho High School. Naguchi waxay ka fakaraysay Kuro. markaas ayay aragtay Kuro oo qolkeeda dhex fadhiya habeenbad. wuxuu u sheegay in dagaal weyn uu ka dhici doono iskuulka wuxuuna uga digay inay timaado. ninkii aan la arki karin wuxuu ereenayay nin kale oo lagu magacaabo Saruta. horay ayuu uga tirsanaa kooxda Kuro ee NIN laakiinse uu ka baxay. ninkii cadowga ahaa wuxuu Saruta ku yiri ma rabtaa inaad ku biirto undergroup ninjas. Saruta markiiba wuu ogolaaday wuxuuna yiri dadka oo la dilaa aad bay farxad gelisaa. waxaa cadaatay in ninka dadka dilaya uu ahaa Saruta laftiisa. subaxdii xigtay Saruta wuxuu dilay arday iskuulka u socday. Naguchi inkastoo looga digay iskuulka ayay timid. maamulaha ayaa arkay waxayna u sheegtay wax walba. maamuluhu wuxuu siiyey fariintii ring wuxuuna ku yiri Kuro ugeey waa muhiim. goor dambe Saruta oo wata meydkii ardayga ayaa soo dhex galay fasalka. ardaydii way argagaxeen. Sarutana wuxuu bilaabay inuu ardayda laayo. Suzuki ayaa soo gaartay fasalka oo la dagaalantay Saruta wuxuu sheegay inuu hore u jeclaan jiray Suzuki balse ay ku jeestay. dagaal culus kadib Suzuki way jabtay sababta ah suudhka Saruta wuxuu nuugayay korontada. Kato ayaa soo dhex galay oo badbaadiyay Suzuki. Kato wuxuu dhiiggiisa ku firdhiyay suudhka Saruta si loo arko. Saruta wuxuu isticmaalay hab difaac suudhkiisa u furmayo sida buufinka isagoona halkaas iskaga baxsaday. Naguchi waxay la kulantay Itiya waxayna aadeen dhanka godadka halkaas oo Kuro kula kulmay Mitsuki. waa Mitsuki qofka malagay qorshahan oo dhan aad bayna u awood badnayd. dhanka kale saqafka iskuulka Shion ayaa la dagaalamayay Saruta. Shion wuxuu isticmaalayay quraaradaha dhulka iyo bombaladiisa si uu u ogaado meeshuu Saruta joogo. Shion uu dhaawacmay laakiin Kato ayaa yimid oo dilay Saruta. dhanka hoose Kuro wuxuu ogaaday inay Mitsuki rabto inay soo xirogeliso ninjaaska si ay u jabsato dayax gacmeedka taasoo ay hadda ku guulaysatay. kooxdeedu waxay hadda maamulayaan leesarka. Naguchi ayaa timid oo Kuro u dhiibtay farantigu wuxuu u yeedhayay daroon wata seef. Kuro wuxuu bilaabay dagaalkii ugu dambeeyay ee Mitsuki wuxuuna ogaaday inuusan si caadi ah uga adkaan karin. Kuro wuxuu go'aansaday inuu naftiisa halis geliyo si toos ah ayuuna u weeraray. labadooduna seefo ayay iska dhex bixiyeen. Mitsuki way dhimatay Kurona si xun ayuu u dhaawacmay. dayax gacmeedkii la jabsaday wuxuu burburiyay iskuulkii
oo dhan oo dadkii dhulka hoostiisa ahaana way dumeen. Kuro wuxuu ogaaday inaysan wada badbaadi karin. Suurkiisii badbaadada ayuu iska bixiyey wuxuuna u hooyay Noguchi. Dhagaxyadii ayaana ku soo duldumay. Noguchi way badbaaday sababtoo ah waxay xidhnay suurkii badbaadada, laakiin Kuro naftiisa ayuu u horay si uu u badbaadiyo iyada iyo adduunkaba. Dhammaadka muuqaalka waxaan arkaynaa wiil la mataan ah Kuro oo la yiraahdo Churo kaasoo u yimid Noguchi. Filimkeena maantana halkaas ayuu ku eegyahay. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, channelkana subscribe de si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. Haddii aad u baahan tahay filimka magaciisana hoos ayaan idiin soo dhigay. Waxaana inoo ballanaa muuqaalkan xiga.